hay'adda DDG ayaa maanta seminar ugu qabatay dad reeyada hotelka Al-Hayaat ee degmada Balugubadle. Dadkan ayaa ka kala yimid tuulayaasha hoos yimaada degmada Balugubadle. Hay'adda DDG ayaa ka shaqeysa mashaariic la xiriira khilaafaadka beeraha, ururna haraagi, dagaalada, xafidaadda hubka fudud iyo qorshaha badbaadada bulshada. Ujeedada seminarkan maanta ayaa ku saleysnaa isku xidhka booliiska iyo bulshada, iyadoo dadweynaha iyo booliiskuna loo baahan yahay inay markastaba isku xidhnaadaan seminarro noocan oo kale ah aad iyo aad ugu baahan yihiin. Goobtan ayaa waxaa ka soo qaybgalay taliye xigeenka qaybta booliiska gobolka Hawd, taliyaha saldhigga degmada Balugubadle, maayarka xigeenka degmada Balugubadle Mawlid Jaamac Yuusuf, sarkaal ka tirsan hay'adda DDG Mr. Idris Abdi Xirsi. ugu horreyn goobtaasi waxaa ka hadlay maayarka xigeenka degmada Balugubadle Mawlid Jaamac Yuusuf oo sheegay hay'adda DDG faa'iidada wax ku oolka ah ee uu ka helay deegaankani. sidoo kale madaxxafiiska degmada Balugubadle qorshaha badbaadada bulshada hay'adda DDG Mr. Faisal Abdirahmaan Madar oo ka faalooday mashruuca badbaadada bulshada faa'iidooyinkiisa iyo waxtarka uu leeyahay bulshadana ku cadeeya ayaa isaguna goobtan ka jeediyay warbixino la xiriira qorshaha badbaadada hoos yimaada deegaamada hoos yimaada iyo guud ahaan Soomaaliland. marka guulo badan baan runtii ka gaarnay mashruucu intuu halkan ka socday. guulahaas waxa kamid ah waxaan sameynay xalinta khilaafaadka bulshooyinka inta badan wada ogtihiin guuraaga waxa isku haystaan beeraleyduba khilaafaadda dhaxmara khilaafaadkaas oo runtii ku lug leh xagga beeraha xagga dhuxusha geedka qoyan iyo waxyaabo soo raaca. marka waxaan isku daynay sidii khilaafaadkaasi ay u xalin lahaayeen bulshooyinku annagoo runtii tababaro siinay la xiriira xalinta khilaafaadka. tababaradaasi aanu bixinay runtii wax badan bay bulshada ka caawiyeen. buug baan ku tababarnaa bulshada. buugtaasi waxa la yiraahdaa buugta xalinta khilaafaadka. wax badanna way u tareen runtii. waqtigii hore waynu ognoo khilaafka waxa xaliya ama xagga odayaal dhaqameedka ama xagga gudiyada tuulooyinka ama xagga maxaa hayto culimada diinka. marka waxaan oran karaa runtii wax fara badan bay ku kordhisay arintaasi ama khilaafka aanu xalinaa xalinta ay xalinayeen marka horeba odayaasha iyo bulshada. Mr. Idris Abdi Xirsi oo sarkaal sare oo ka socda hay'adda DDG ayaa ka warbixiyay hay'adda DDG iyo waxa qabadkooda xoogga leh ay ka fuliyaan deegaanada markastaba degan yihiin. aba waxaan ugu project ama mashruuca badbaadada bulshada kaas oo runtii wax badan koobsanaya meel kaliya maaha habka booliska iyo ay bulshadu wada shaqeeyaan oo kan maanta aanu taaganay habka xalinta khilaafaadka. waliba xalinta khilaafaadka markaan leeyahay maaha tii la dhexdhexaadinayay bulshada qabiilada kala duwan, laakiin waa tii shakhsiga ama anger management waxa afka qalad loo yaqaano calada diinteenu inoo sheegtay in loo qaboojinayo marka amba qoyska oo kale familiyada oo kale. waxa kale oo aanu qabanaa waxaan loo yaqaano mind education wacyigelin ku saabsan walxaha qarxa oo aanu dadka behavior change kooga amba maskaxdooda amba sidii hore u la dhaqmi jireen haday wax qarxa ay arkaan aanu ka bedelnay oo ah inay soo sheegaan hay'adaha ku shaqada leh si ay markaa waajibaadkooda iyaguna ay uga gutaan. deegaanka degmada Balugubadle ayaa markastaba waxa uu ka helay sanadooyinkii isku xigay faa'iidooyin fara badan oo wax ku ool ah hay'adda DDG.